بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد دعوة يا الكسر دعوة برنامج كمان قدلين ميل والبدون كدعوة نسان برنامج كمان قدلين وبرنامج عن كسر قاضون مرتي ده سو قدل سمان كيجا أنا كهل نقدر رجالين إن الرقاجسة ونجارتي سميلا داير إنه وجر تدف الدون يمد آخر لبضة بقى ما أنت موضوع عن كهل لين عوان كسوة حويان ورابي هذا وناك ورابي هذا وناك ولا ليال وحن أجنهاي ودنه وحبين وين أو كشرته شركة بني آدمك قيب وينك جشرته شركة بني آدم كان لأنتيس وسنشير كرين هدي هجاكتنا نولش بني آدم كودن هجاجيسو هدي هلاوذنا نولش بني آدم كودن هلابيسو سيدا أصوبنا هنا نوشيجي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم صوبنا هنا وحليها كبرى رجا أو برتا شركة وحا كشرتا حبنتا هدي عافمات قبطو هجاك سنتهي شركة بني آدم كأودن وهجاجيا هدي حبنتا عذر كدعو هلاوذنا شركة بني آدم كودن وهلابيا حبنتاسنا وحوليه رسولك كبراروغا أو برتا وقلبك مركا ولا ليال وحان أغنهاي قلبك قيمة قارو نوليهاي أو ونقوينيهاي وميشا عن كنولنهاي وميشا عن كسعنو هدي حبنتا استاكتو نولوشا يدا أو دن واستاكتي هدي حبنتا سعطنا نولوشا يدا دن ويسعطا هرمر إيا وراغ وان غاري كرنا وحان أغنهاي ولا ليال haddii qof bin aadana oo aad u qiimeyso labadii ku dhashay ama kula dhalatay ama maartay wada dhalateen ama isku dhaxdeen qof aad saaxiibo iyo macrifo dheer ayna ka dhaxayso oo noloshaada meel weyn kaga jira hadduu ku yimaado uu ku yiraahdo maanta wadnaha i xanuunaya oo la iga haya ama uu ku yiraahdaba cudur baa la iga soo sheegay isla markii waad naxaysaa waad walwalaysaa walbahaar baa kugu dhalanaya waxaad ogtahay qofkaas inta uu wadnihiisa dhaqaaqay oo caafimaad qabo ina wada nooshiin oo mustaqbalkiina aytiinkiina uu fiican yahay hadduu qofka maanta uu wadnaha istaago in noloshiisa meesha ku istaagtay hadduu dhintana qofka dhaqaaqay oo noloshaada meel weyn ma aragtay ay banaanaanayso waa ku soo baxaysa marka waa arin aad qiimaheeda u leh waxa badanaa dhacda qofka haddii cudurka lagu sheego in laga naxo laakiin cudurro kale oo ma aragtay kuwan xisiga ah oo hadda dhaqaatiirtu ay noo sheegaan aan ahayn oo macnawi ah oo ku dhaca laakiin qofka oo qaba inaanan macnaheedu laga danqan ama laga nixin ama ma aragtay dib loo aragba qofkiyo si indirectly ah oo wadnihiisa u dhintay oo u nooleyn ina haddana ma aragtay dadka ku dhex jiro marka waxaan rabaa walaalayaal ina ogaano aan ku baraarugno wadnahan iyo qiimaha uu leeyahay aan xumaantana xuduud iyo xayndaab aan ka yeelano oo wadnaha iyaga aysan u gudbin wanaaga iyo waxa aan ku xoroobi karnana aan ma aragtay ku dadaalno marka waan ku sheegi doonaa insha Allah waxaan ku siin doonaa macnaheeyi wanaagyo badan oo waraabinaya wadnaha iyaga kana qayb qaadan doona insha Allah taala horumarka iyaga iyo guushiga adduun iyo aakhiraba walaalayaal wadnuhu waxa la yiraahdaa waa weel oo kale weelkana mar walba wixii aad ku karsato ama aad ku kaydsato ugu tagaysa haddaad wax wanaaga aad ku kaydsato ama aad ku karsatana waxa aad ka hesho waa wanaaga haddaa wax xumaana aad ku kaydsato ama aad ku karsatana waxa ugu tagto waa xumaantaas sida la yiraahdaba garbage in garbage out ama good in good out haddii wax wanaagsan aad gashato weelkaasna de wanaagaas ugu tagaysa haddaa wax xumaanta gashatana xumaantaas ugu tagaysaa sidoo kalena maamahda carabta ay leedahay ama macnaheedu murtida carabta ay leedahay kullu inaa'in bima fihi yandah weel walba waxa uu dhidido waxa way waxa ku jira waxa ku dhex jira buu dhididaya marka walaalayaal waxaan rabaa inaan kuu sheego wanaagyo badan oo horumarin kara oo wadnaha iyaga u baahan ma aragtay inaan ku baraarugsanaano oo aan barano
si aan anaga barwaaqo adduun iyo mid aakhiraba ugu noolaano inta marka inaan wanaagyada u galin waxaan rabaa inaan kuu sheego xumaanta ku imaato wadnaha waxaan ognahay walaalayaal mugdiga iyo iftiinku ma wada kulmaan macnihii xumaan iyo wanaag ma wada kulmi karaan haddii aan rabno inaan wanaag aan waraabno oo wadnahayaga wanaajino si aan horumar aan u gaarno adduun iyo aakhiro waa inaan horta xumaaniyada aan ku dhaca aan ogaan karna anigoo aan soo dhammaystiri karin intaa dhammaantiin aan ka wada hadli karin cudurrada ku dhaca cadkan aan ka hadlayno iyo dhibaatada uu noo kaysan karo baan haddana waxaan isku dayay inaan soo koobo oo inta ugu muhiimsan aan ka hadlo intaasaa macnihii cashir noogu filnaan karta kabacdi waxaan ku siin doonaa xaalka laga rabo wadnahayaga inuu ahaado mar walbaba kabacdi waxaan ku siin doonaa insha allahu tacaala sidii aan wadnahayaga aan wanaag ku waraabin lahayn oo aan ku xoreyn lahayn oo maartay si aan guul adduun iyo aakhiraba maartay aan ugu maartay ugu dhamaan insha Allah rahmaan marka walaalayaal haddaan isla fahanay xurmada iyo qiimaha uu noo leeyahay qalbiga oo aan dhahnay waa meesha aan ka noolnahay aan ka soconno hadduu istaagana nolosheena istaagayso hadduu hagaagana ee nolosheena hormarayso waxaan ku siinayaa inta aanan ku siin waxyaalaha waraabinaya oo wanaagyada ah xumaan baa ku jirta marka sheega haddii marka hore xumaan ay ka buuxdo dee wanaag ma soo geli karo saan ku tusaaleynaa nalkan iyo mugdi ma wada imaan karaan mugdi hadduu joogo mugdi waa meesha jooga markuu nalka imaadana mugdigu wuu baxayaa marka waxaan rabnaa inaan mugdiga aan nalka ku ifino wanaagga ah aan wanaagga helno marka xumaanaha ku imaado wadnaha xumaanadaasna waa inaan sifeynaa oo ka dhammaynaa wadnahayaga saan maaragtay wanaag u buuxino horumarkanana aan u gaarno xumaanta koobaad oo ku dhacda wadnaha oo wanaaggana ka hor istaagaysa waxa weeyaan xasadku walaalayaal waa maaragtay shacuur iyo cudur ku dhacda qalbiga xasadkuna xaqiiqatan waxa weeye macnaha kugu dhow oo kugu fiican aan ku siin karo waxa weeyaan xasadku waa qof wixii rabbigeen uu qadaray uu qorsheeyey uu qof macnihii u qadaray oo uu siiyey oo fadaa'ishiis aan la tirin karin ah qof ku qanci waayey oo maaragtay qadihii iyo qadarkii iyo maaragtay qorshihii rabbi macnihii ku qanci waayey oo ka xumaaday rabbi isagaa qaybiya bin aadamkana fadligiisa u qaybiya rabbina bin aadamka ma simin saas waana cadaalad iyo xikmad xeel dheer uu rabbigeen uu sameeyey dadkii baan cilmigii baan loo maaragtay simin iyo caqligii caruurtii caafimaadkii horumarkii waxaasoo dhan ilaahay subxaana taala waa kala fadilay maalmihii la kala fadilay xitaa ambiyada ilaahay waa la kala fadilay walaqad fadalnaa bacda annabiyiina calaa bacd maalmihii yaa la kala fadilay oo maalinta ugu fadli badan waa jimcada bilihii yaa la kala fadilay oo bilaha ugu barakaysan oo ugu qiimo badan waa ramadaan marka magaalooyinkii xitaa la kala fadilay oo ilaahay magaalada maka almukarama waa ummul qura suu rabbigeena uu ku tilmaamay waa magaalada ugu fadli badan magaalooyinka marka rabbi fadligiisa ciddu doonu uu siiyaa marka fadli rabbi uu qaybiyey oo qorsheeyey uu qof siiyey buu ku qanci waayey uu ka xumaaday marka waxay imaatay inuu marka uu ka hadlo uu ka xumaado qofka oo maaragtay iscuno heer uu qofka marka dambe xitaa gaaro inuu xadgudub uu isku bedelo oo maaragtay uu xadgudbo oo maaragtay isku dayaba haddii uu zuulin waayey xasadku waa in wixii rabbi qaybiyey uu qofku uu ka qaato isaga ay ku soo wareegto ama ma ahaneeba uuba tirtiraba oo la waayaba marka wuxuu isku dayaa marka dambe suu marka hore ooga hadlayo oo maaragtay ooga dhiidhinayo ooga sheekeynayo dhaliilo u imaanayo oo wax walba isku dayo inuu downgrade uu ku sameeyo uu hooseeyo macnaheedu hadda qof baa waxa leeyahay wuxuu guursaday maanta gabar qiimo badan oo maaragtay dadnimo iyo diin leh oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhammaystiray qurux inuu ka xumaado qof baa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u furi karaa cilmi iyo xikmado oo ilaahay fadligiisa uu siiyo waxaa laga yaabaa in arrintii uu ku qanci waayo uu damco inuu hoos uga dhigo waxaa dhici karta inuu rabbi subxaanahu wa tacaala awlaad siiyo uu ka xumaado waxaa dhici karta inuu ilaahay maal siiyo uu ka xumaado waxaan xasad marka ahayn aan xumaan ahayn
هدا أرك قف ولالك ينمعي إلهي قف قيمة بدن أوسية مثلا إن عنده إلهي وهبل وأن أجنهي واحد سيسي قبر قيمة بدن ودنا مية الدين له إلهه يضع كلا استي وأديه كرتا أما وحاب أديه كرتا إلهه أبركه سيد رسول كان نبرة بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم بخير إلهه أبركه هو ناجي لكن إلهي وأنا جنا متك قرح بدن استي متك قيمة بدن استي استجنا قيمة وهجاجي حسن ما معها وقيمة شرف واي ووحي ربي ما تقدري إلى تكفر حلا واي ما شاء الله هذا هذا قفبه مثلا مليونير لقدي وحدي كرتا إله مليونير كيس أبدي حليس أبركة لكن إله أنا بليونير يقدي وهنتي إيه بدي وحكود جدا ملها قفبه إله علم السيء عقل أسيء وحدي كرتا إله علم كيس أبركة إله أمد كو أنفع إله إسوا كو أنفع خير بأورجين كرتا وناك بأورجين كرتا هذا أنا وحدي كرتا إله علم كيس متكبدا السيء قف كود جدا ملها مركا taas waa arin xasadka imaata oo nan runtii ay isleeyahay anaga umadeena in yar oo Ilaahay u naxariisto ma ogiye waa sun qaatila ah oo qulubtayda kala dishay oo horumarka noo diiday oo umadeena aad ugu baahday aad runtii noogu baahday dhibaatadeena leh marka ina arinta aan ku baraarugsanaano oo ma aragtay hadalkan iyo ishaysigan badan aan ka baxno oo ma aragtay ina isku ogolaano waxyaalaha wanaaga waxa arkaysa inaan qof wax ogal uusan jirin maqaan beena isku ogoleen oo magac beena isku ogoleen oo maal beena isku ogoleen oo haba yaraatee wax hormar ah aan isku ogolahay ma jirto aan Hussein iyo Xasanimo aan ka ahayn oo aan ahayn hadda aniga cuni waayo waan ciideynaya oo qofka walaalka u diidaysidba qof u diida ama qoys u diida ama macna qaran u diidona waxa uu iimaanaysaa in waligeed meesha la taagnaaday dhibaato imaato waa cudur halis islaawayaan cudurka labaad walaalo oo ka sokeeya oo ka qarsoon dhibaatadiisana waxa weeyaan masayrka oo qalbigeeda dabooli kara waa masayrka waay masayrku kani wuxuu oga duwan yahay kii hore in waxaan iszuusho ama isoo ku soo wareegto jeclaa kan waa qof iska hinaasaysan ma aragtay iska xanaaqsan buufis oo kale isaga jiro waana kula jooga oo nin had qof had ka fog ma ah waxa laga yaabaa masayrku badanaa labada qof ama inay wada joogaan oo dad macnaheedu wada nool oo isqabo oo kale noqon karaan ama ma aragtay dad meel ka wada shaqeeyay ay yihiin ama ma aragtay dad ma aragtay maxaan ku iraahdaa arrimo kale ay ka dhaxayaan ay yihiin bubadana uu ku imaada masayrkuna masayr mid amaanan oo la jecel yahay jira aan xumayn oo ah qofka ma aragtay marka uu yahay wanaag u dirirka cadaalad u dirirka ma aragtay gobonimo u dirirka xaq u dirirka qofku markuu yahay inuu hinaasa u leeyahay oo masayrsan yahay oo ma aragtay xumaanta suu macnaheedu u zuulin laha uu ka masayro waa sharaf iyo wanaag waa la jecel yahay midka macnaheedu labaadna waa midka isagana maqbuul weeye waa la ogol yahay waa midka midalan haweenka ku dhaco kale ama ragaba waa dhihi karnaa labada qof oo kale ku dhacdo buu ku dhacdaa kaas isagana waa mid maqbuul oo expected ah oo inuu qof ku imaado macquul tahay markii waxa koosgareeya ay imaan karaan isagana daawadiisu waa fududahayo qofka hinaasaysan oo markaa masayrsan waxa tahay kaliya in uu muujiso oo aad tusto galgacaylka iyo raxmadda iyo wanaaga aad tusto oo wax walba uu qofka uu sheeganaya ama uu ka qaylinaya ama ka xanaajinayana aad tusto wax cagsigeeda ah oo qiimo ah oo qadarin ah oo xurmada aad tusto isaguna kaas lama diido lagamana dagaalamo lagamana doodo midka la diido oo laga dagaalamo oo xun waa midkaan saddexaad oo ah qof kula jooga oo walaalka ah oo uu fadaaisha aan sheegnay mid kamid intuu helay ilaahayna oo hagaajiyay oo aad ka hinaasoonayso qabkan hab dhaqankiisa hab socodkiisa hab nololeedkiisa horumarka uu ku socdo aad maartay aad ka xuntahay ama uu qofka macnaheedu ka xun yahay marka qofka noocaas oo kala ah inaad nafteen u ogolaan qalbigan u ogolaanana ma aha qof noocaas oo kale hadda aragna iska ilaalisid waay because waa qof markaas kale u badan tahay saan sheegnay qof kula nool buu noqon karaa qof maartay aad wajigiina isku badan yahay ama macnaheedu ama muuqaalkiina isku badan yahay ama magaciina ismaqalka isku badan yahay uu yahay u badan tahay badana inaad meel aad ku wada joogtaan ama saan sheegnay guriga ku wada joogtaan ama maartay shaqo ka wada shaqeysaan ama xagga siyaasadda oo kale iyo dawladnimada iyo maartay baad qayb ka tihiin ama xagga maartay duruufo kale iyo hawlo ganacsi oo kale naga dhaxayn karta qofka noocaas oo kale ah
arrintaas kale hadee ku imaato waa arrin cudurkeeda leh waa arrin haliskeeda leh waa arrin qalbigeeda dabooli karta waa nimada Soomaalida dhahaan baadida ninba kula deeday daalna ka badane ana dooni inaa hesha daayin abidkaayo qofku waa kula jooga waa kula fadhiya waa is arkaysaan waa ismaqlaysaan horumarkaada iyo hanaankaada iyo wanaagaada ma rabo marka waa arrin rabbi laga maangalo oo ma aragtay ku dhacda runtii qalbiga ku dhacda waa arinta kale walaalayaalow tan maseerka wax yar aan ugu daray waxa waaye oo la qayb la noqon karta runtii qodob la noqon karta waa xanaaqa waa qof mar walba shucuurtiisa ay kacsan tahay xanaaqana waxaad moodaa arinta aad anaga noogu badan oo qofka iyaga wax yar baaba lagu qufuli karaa fartaana wada gaarta ama lagu duri karaa ama lagu xanaajin karaa waana arin ma artay rasuulkeena uu u dardaaramay saxaabadiisa qof baa weydiiyay rasuulkeena waxa wuxuu ku yiri awsini rasuul Allah ii dardaaran markaas wuxuu ku yiri la taqdab macna hadana ii dardaaran la taqdab xanaaqin marka xanaaqu waxyaalo badan buu na dhaafsiinaya wadanka hadda aan ku noolnahayna runtii anger managementiga barnaamij badan loo furaa marka xanaaqu waa waxyaalo qalbiga dili kara qofkan waxa fiican mar walba inuu waqti isa siiyo arintan uu ka fakaro uu san ma aragtay noqon qof dhacdadu ay ma aragtay dhaqaajin karto ama dhaliilaha ay dhaqaajin karaan laakiin uu noqdo qof qalbigiisa uu degan yahay uu hagaagsan yahay oo self control leh oo balance garaysan oo ma aragtay xasadka iyo maseerka iyo xasnimada aan sheegayno aysan wadnihiisu ayna saameyn wanaagana ayna ka hor istaagin qodobka kale oo ma aragtay walaal afraad oo aan cudurrada macnaheedu ama xanuunada qalbiga iyo dabooli kara dili kara waxa weeyaan waxa la yiraahdo kibirkuna walaalayaal waa qof isqaad iyo ma aragtay isbuunbuunin iyo ma aragtay qab uu ku jiro ama ha iskula qab weynaado isaga shakhsiyan noloshiisa ama mid qof ku faanayo iskula qab weyn qabiilada uu ka dhashay ha ahaado ama ahana waxa dhihi kan xataa qarannimada qofba hadda wuxuu ku leeyahay midalan ma aragtay this is America oo kale wadanimo ku faantamaya ama macnaheedu this is Somalia ama this is Kenya qofka ama qarannimadiisa ku faantamo ama qabiilo ha ku faantamo uu ka dhashay ama qoys gooni ku dhashay ama shakhsiyadiisa wax ilaahay ogol yahay ma aha kibirkana rabbi kaliya iskale anagu waxaan leenahay ma aha xaqiiqatan hadda aragtid qof isla qab weyn oo kibir uu ku jiro oo santaag uu ku jiro waa qof maran waa qof eber ah waa qof aad u yar marka wuxuu rabaa meesha maran inuu buuxiyo waxa uu ku buuxin kara kaliya waxa waaye inuu isboombooniyo balaaye iska dhigo uu ku yiraahdo badahan mara hawadan mara dhulkan kala jeexa saasoo kala uu badana ku faantamo wuxuusan ahayn ama wuxuusan haysan uu ku faantamo ha ku faantamo ma aragtay dadku ka dhashay ee sheegnay dawladda wuxuu rabaa ahaataan xaqiiqatan waa calaamad xun qofkii lagu arkana aad ka garan karta inuusan waxba ahayn uu maran yahay marka muuqaalka guud ha ahaado shaati walba ha ku soo xirto gaariga ugu qurux badan ha ku socdo ma aragtay guriga ugu qurux badan ha yiraahdo waan deganahay wuxuu raba uu sheegtaba xaqiiqatan waa cudur aad u daran aan u baahanahay suu wadnaheena wanaaga aan rabno u soo maro aan ma aragtay aan iska ilaalino oo aan isaga digno kaamidka ku xiga oo shanaad waxa weeyaan kalsooni darada waa mid kibirka cagsiga ku ah kii hore waxaan dhahnay waa kibir isla qaadid kan laakiin waa mid ma aragtay aad u haniyar oo ma aragtay habeerate qabka ka ku jira cagsigeeda uu ku jiro oo is aaminsan inuusan waxba qabsan karin inuusan waxba uusan ma aragtay heersan uusan gaari karin uu isleeyahay waa macnaheedu waa yar tahay oo uu naftiisa liidayo oo kartidiisa uu liidayo oo aqligiisa uu liidayo oo waxaas oo dhan ay ku imaanayso waxaas ha ku keenaan bay'adii uu ku soo koray ama qoyskii uu ku soo koray ama ma aragtay magaalada uu ku soo koray ha ahaato meel isaga lagu yeesi jiray oo ma aragtay waxa dhan wax lagu shubay oo loo sheegay ha ahaadaan ama wax isaga self talk oo isaga iskula hadlay iska dhacay ha ahaadaan waa cudur dilaa ah oo qofka haduu ku dhaco qalbiga ka digi kara curyaamin karana aan u baahanahay in aynaan ma aragtay aynaan saas aynaan noqon qofka bini aadamka inuu qadarkiisa u ogaado waa arrin fiican waay ma xuma waxa leeyahay rahimallahu imraan arafa qadra nafsihi in ogsoono meesha aad joogtid
هدي حتى هوسيس أكسونو مثلا هداد أقونت هذا أيرتاي أكسونو هدي أخست هذا أيرتاي أكسونو هدي قرست هذا أيرتاي أكسونو هدي مارتي وحبرشة هذا أيرتاي أكسونو لكن معها إنك عرياميسو أكسونو waxa kale ogaataa wax ku xadidi kar inay jirine aad wax walba baran karto oo wax walba qabsan karto oo ay karti kugu jirto oo aqal kugu jiro oo wadni kugu jiro oo wixii int bin aadan uu sameeyaba aad sameyn karto hadda adigu isku daydo rabbigaana subhanahu wa ta'ala garab uu kugu siinaya marka waa arintaas inay iska xirno oo ma aragtay aysan ugu iimaan oo aan iska xadidno xeendab aan isaga yeelno weeyaan oo kalsooni darada ama ma nafteena ku kalsoonayn ina nafteeda aaminsanayn aan wax walba anaga isku akhrinayno ama qof kale wuxuu nagu akhriyo aan qaadanin in iska qabano way runtii xaqiiqatan qodobka walaalayaalow qodobka ilxaad oo ku soo xiga waxa weeyaan waa arin runtii halis ah oo inta hore aan soo sheegnayba ka daran waxa weeyaan munaafiqnimada qofka inuu laba wajiilo yahay qofka inuusan sharaf iyo shakhsiyadba uusan lahayn xaqiiqatan waxa la yiraahdaa waa integrity qofka haduu integrity uusan lahayn oo integrity waxa la yiraahdaa waa inay iswaafaqaan waxa qalbigaada ku jira iyo waxa afkaada ka soo baxaya iyo waxa ficilkaada u yahay waa inay iswaafaqaan qof waxa uu ku hadlayo iyo waxa uu aaminsan yahay iyo waxa uu sameeynaa iswaafaqsanay hadaa aragtid oo hadallada kala badbadalaya oo ficilada kala badbadalaya oo marba midab kula iimaanaya waa arin halis weeyaan waliba waxa laga yaabaa qofkaas inuu noqdo qof hadaladiisu ay badan yihiin Soomaalidu ha qurxiyaan hadhan waa afmiishaar ama waa aftahan hadhan laakiin hadaladiisu ay qurxa badan yihiin oo waxa uu sharaxay ay yihiin laakiin xumaan ay hoos uga jirto ama ficilo qurux badan ku tusayo laakiin aksi xumaan ay ku jirto oo umada kala geynaya oo maartay labadii maanta wada nool isqabta kala geynaya labadii ganacsi ku jirta kala geynaya labadii maartay dawlad iyo qarannimo rabto oo rabto inay daacadnimo u wada shaqeeyaan oo dadka u shaqeeyaan oo dawlad ay macnaheedu wanaagsan ay dhaliyaan oo dadka horumar u horseedaan kala geynaya waana mid walaalayaalow ilaahay fadligiisa waxaan ka baryaynaa inuu arintan naga fiyoobiyo oo naga caafimaad cudur aslada waa baahay oo waxa aan 30 sano aan la qaylinayno oo waxba la qabsan la'nahay waxa arkaysa in cudurrada hadda aan sheegayno inay qayb weyn ka yihiin individually hanoo curyaamiyaan ama qoys hanoo curyaamiyaan ama ma aragtay qabiilo dhanba hanoo curyaamiyaan ama qaran ahaanba hanoo curyaamiyaan munaafiqnimadu waa shay qofka ay ku jirto ay tusayso xadaara darro qofka uma ogola wax ma aragtay waxaan isaga ahayna ma ogola waana cudur dilaa oo u baahnaa inaan ka dawowno waxa xaqiiqa oo dhaba oo jirta oo aan rabnaa inaan ku baraarugno haddii qofka ay ku dhacaan waxyaalaha hadda aan soo sheegnay oo ma aragtay xumaan ah inay daboolayaan qalbigiisa oo qofkii indhabeel dhab ah uu ku dhacayo indhabeelka dhabta ahna waa qofka qalbiga beelo weeyaan oo qalbigiisa mudoobaado oo qalbigiisa ma aragtay uu daboolmo annaga waxaan u naqaanaa qofka aragtidan beela oo rabbigii subxaanahu wa ta'ala abuuray oo u qadaray uu ka qaatay ama dhagaha maartay rabbigeen uu ka qaatay ama lixdiisa macnaheedu lixaad qayb kamida macnaheedu rabbigeen subhanahu wa ta'ala uu ka qaatay isagoo ku imtixaamay kala iyo maartay ka laga qaadayba waa ku imtixaamiin laakiin qofka aragtida ku sabra qiimaha badan oo rabbi subhanahu wa ta'ala uu ka qaatay qofka ku sabra waxa dhaba oo xaqiiqa inuu rabbi ajrna ka siinayo jannana uu ka helayo waxa arinta ka qiimo badanna malaha oo qofka sameyn laha qofkii maanta rabbigay uu qayb macnaheedu lixdiisa xad kamid uu ka qaato kuna sabra ajirkana macnaheedu xisaabsada rabbi suu ballan qaaday waa ajir badan oo aan loo xisaabinayn baa la siinaya jinana la siinaya qofka marka saas oo kala ahna de walaal qofka wax ka qiimo badan oo uu heli lahaa oo janna ama jiraan qof baaba adi hal aragti mesela iska daa ama dhaga iska daa ama qayb lixdiisa xad kamid iska daaya naftiisa dhan ku bixiso janno ku heli lahaa maalkiisa dhan ku bixiso janno ku heli lahaa magaciisa dhan ku bixiso janno ku heli lahaa oo mar walba uu yahay xaaladiisa iyo waxa uu raadina ee tahay ridaha rabbi subhanahu wa ta'ala marka qofka indhabeelka dhabta ah waa qofka qalbiga beela annaguna qof qalbiga la oo macnaheedu aan leen inta cudurro soo sheegnay ay ka buuxaan oo munaafiqa afmishaar baan dhahnay oo ma aragtay maseerka badan oo xasadka ah oo xumaan oo dhan ay ka buuxdo waa iska hormarina haddaanu madax ka dhiganayna haddaanu meel u darsanayna haddaanayna kaala noo dagaalan ama wax naga ceel aan leenahay ma aha
midkaas xaqiiqad kaas wuxuu u baahan daawo in la daaweeyo oo maartay saan sheegnay daawooyinka aan sheegi doono kale u baahan yahay ina iska qabana u baahanay annagana waxa u baahanay qofkaas oo kale inaan saaxiib ka dhigan qofka noocaas oo kale wixii aad naftaada u ogolaan weydo qofka xitaa looma ogolaado annaga nafteena ogolnahayna ma aha oo waxaas aan qaadano waa waxaan ka digayno aan rabno inaan barano aan ku baraarugno qof kale oo walaalkeen ahna uma ogolin lamana rabno qof noocaas dhaqankiisa iyo maartay caadadiisu ay tahay inaan la saaxiibno waa inaan dadka wanaagyada badan aan la saaxiibno si wadnaha iyaga wanaag fiican ooga waraabo horumarka rabnaa aan ku gaarno waxaan u gudbayaa qaybta kale oo runtii muhiimadeeda ah oo ah walaalayaal haddaan aan xurmadii wadnaha aan ka hadalnay xanuunada ka imaadana aan ka hadalnay waxaan rabaa aan maartay aan kuu sheego walaal aan ku baraarugno aan baran runtii wadnahayga xaalka laga rabo muxuu yahay waxaan rabaa inaan kuu sheego maanta si fiican ugu baraarugto qofka bini aadamka ah mar walba lagama fisho inuu perfect noqdo inuu 100% noqdo lama rabo waxa la yiraahdaa no one is perfect qof 100% dhameystiran ma jirto ilaahay baa sifatul kamaal iskale oo dhameystiran subhanahu wa ta'ala laakiin waxaana la ka rabaa inuu wadnaha iyaga 100% u noqdo inuu perfect u noqdo oo haba yaraatee cudurrada hadda aan soo sheegnay mid kamida iyo jabkiis iyo wax yarna uusan ku jirin rabbina waa mid uu noo sheegay waana mid maalinta qiyaamaha la tago lagu xisaabtami doono oo qof walbana laga filayo lagana rabo wax cudur daarna aan laga yeelin hadduu inta maal uu leeyahay uu keeno hadduu inta caruur u dhalay uu keeno hadduu magac walba iyo maarta qabiilada uu ka dhashay oo ugu weyn uu keeno ama dawladda uu ka dhashay uu keeno rabbi kama yeelayo laakiin wuxuu ka yeelayaa wadna 100% ah wuxuu rabbigeen leeyahay yawma la yanfa'u maalun wala banuun illa man ata allaha biqalbin saliim wuxuu rabbi leeyahay maalin waxa jirta qof wax laga yeelay isan jirin waxa laga yeelay kaliya passport kaliya laga yeelay waxa weeyaan qalbi saliim ah wanaagsan kii horaan ka soo hadalna wuxuu ahaa qalbi saqiim ah oo xanuunsan kana waxa weeyaan qalbi saliim ah oo wanaagsan marka aan ku dadaalno oo aan baranno oo aan ku baraarugsanaano qalbigayga waa inuu noqdo qalbi 100% saafi ah marka suu ku noqon lahaa oo saa ku heli lahayn waxa loo baahan yahay inaan kala ogaano xumaanta iyo wanaagga waxa loo baahan yahay inaan ogaano wadooyinka ay noo soo mari karaan labadaas marka wadooyinka ay noo soo mari karaan waa fudud waxaan ku sheegayaa waa aragtida waa shanta la yiraahdo macnaheedu dareemayaal oo bini aadamka uu macluumaadka ku helo weeyaan wadooyinka loo soo mari karo oo ah aragtida waxaan arkeyno marka waxaan arkeyna mar walba inay noqdaan wax qiimo badan oo wanaagsan soo wadnaha iyaga u waraabo wadnaha u wanaagsanaado waa maqalka meeshana loo soo mari karo wax alaal waxa aan maqleyno waa in ayadana ay noqdaan wax wanaagsan ma aragtay soo wadnaha iyaga u wanaagsanaado waa ma aragtay waxyaalaha aan urineyno wax walba noo soo uraay waa inay noqdaan wax qiimo badan hadda meelaha ma aragtay balaayada qiiqa iyo ma aragtay dhibaatada lagu cabo aad maanta wada joogto waxaas qalbigaada u gudbinayaan oo xumaa urineyso ma aragtay waa waxyaalaha aan cuneyno ama aan cabayno wax walba aan cabayno aan cuneyno waa in ayadana wax wanaagsan ay noqdaan marka walaalayaal haddaan isla ogaanay xurmada uu wadnaha leeyahay oo qiimaha uu noogu fadhiyo aana ka soo hadalnay xanuuniyada ku dhaca aana sheegnayna xaaladda mar walba wadnaha iyaga laga rabo waxa walaal muhiim ah wanaaga aan u baahanahay wadnaha iyaga inaan ku hayno oo aan waraabino si aan wanaaga uu qof walba oo naga mid uu rabo inuu gaaro ama guud ahaanba aan wada gaarno anagoo dhan waxa weeyaan inaan helna wanaagyada soo socda oo ku soo koobaya insha Allah taala waana ku soo dadajinaya qodobka koobaad waxa weeyaan waxa la yiraahdo rumaynta qalbigu waa meesha faith-ka uu dago oo belief system-ka iyaga dhan nalka xukumo waa qalbiga qofka haduusan faith lahayn faith-kuna waxa la yiraahdaa waa qofka inuu rumeeyo wuxuusan arkayn in hada mustaqbalka aniga wax noqon karo ina wax qabsan karo wax hada aan arki karnaa mustaqbalka aniga ma garan karo ilaahay baa garan kara laakiin waa inaan rumayn kartaa inaa wax noqon kartaa wax qabsan kartaa waana waxyaalaha dadka muuminiinta ee gaalada ay ku kala duwan yihiin waa faith-ka waay ilaahayna uu ku amaanay alladina yu'minuna bil ghaybi dadka muuminiinta marka rabbi amaanay wuxuu dadka ghaybka rumeeya waxaysan arkin dadka rumeeya waa inaan qalbigeena dajinaa faith qofka haduusan faith lahayn wax ma qabsan karo wax uu qabsan kara haba yaraatee oo adduunkiisa iyo aakhirada ugu jirto ma jirta marka waa inaan gelinaa faith waa inaan faith system-ka iyaga qalbigayga aan ka buuxinaa oo qalbigayga degaa midka labaad walaalayaal u baahanahay inaan waraabino qalbigayga waxa la yiraahdaa rajada qofka inuu rajo uu qabo
oo mar walba khayr uu fisho oo wanaag uu fisho waxaa jirta qaacida la yiraahdo the law of attraction mar walba wax aad qalbigaada ku soo noqnoqda oo aad rajeynayso either positive or negative waxa soo attract-gareynaysid oo soo jiidanaysid saas waay hadaa xumaan ka fikiraysid maanta waxa soo jiidanaysaa meelaha xun iyo dadka xun hadaa wanaag qalbiga ku haysid iyo rajana maanta waxa aad soo jiidataa waxa weeyaan dadka wanaagsan hadalada wanaagsan meelaha wanaagsan weeyaan marka waa in mar walba aad qabtaa aan leenahay hope system-ka iyagana inuusan macnaheedu uusan gelin maartay dhibaato uusan gelin oo wixii aan soo sheegnay hore aysan maartay naga dabo booskaas ka qabsan waa inuu booskaas oo qalbigaad u degaa oo rajada ah midda saddexaad waxa u baahnaa walaalayaal inaan wadnahayaga waraabino saa hor marka rabna u gaarno waxa weeyaan raxmadda qofku inuu qof kayn ah uu yahay raxmaddu waa cajiib waxyaalaha aan ka hadlayno oo faith-ka oo hope-ka oo macnaheedu oo kindness-ka waxyaalahaas waa waxyaalaha unlimited-ka kuma xadidi karaan qof xero kuma gashan karo qof intuu qalbigaada qofulo qabsan kara malaha qof kugu diri kara oo xanaaq ku dhihi kara malaha qof kugu diri kara oo xasad ku dhihi kara malaha because adiga dhanba waxa tahay qof unlimited unstoppable aan la istaajin karin aan la xadidi karin aan noqonaysa marka qalbiga markaan gelin arintaas oo ma raxmadda ilaahay waa arto waa waasa qofka inuu ilaahay kaga daydo waxyaalaha wanaagsan ilaahay waa xakiimnimada aan kaga dayno ilaahay waa xaliim xilminimada aan kaga dayno ilaahay waa raxmaan raxmanimada aan kaga dayno ilaahay waa caliim cilmiga aan kaga dayno waxa inaan sameeynaa loo baahan yahay waxa kale walaalayaal walba inuu qalbiga dego waxa waaye waxyaalaha la yiraahdo interestiga ama desire-ka qofku inuu qof damiir uu yahay oo dadnimo ay ku jirto oo ma aragtay uu wax uu danaynayo uu rabo inuu wax qabso inuu qalbigaada degan tahay wax qabso wax noqo meel gaar waa inay qalbigaada ay ku jirtaa hadduu qof aan interest lahayn uu jiro desire uusan lahayn wax gubaaya oo dhaqaajinaya uusan jirin waa dhibaato waa inteeda leeg qof iska nool oo soo kacaya seexanaya waxba kaga ma jiro qofka hadduu intii hore aan soo sheegnay oo xumaana ay qalbigiisa ku jirto inta aan hadda aan sheegnayna oo laga laayahay wuxuu isku bedelaa qofkii xayawaanku waa iska nooliyiin waa cunaan waa cabaan bal waxa laga yaabaa inuu xayawaanka ka daran yahay ilaa xayawaanku waxa laga yaabaa waxyaalo loogu talagalay inay sameeyaan ama laga helo caano laga helo cad laga helo ama maartay kuwa kalena rabbigood mucjizas ay u nool yihiin marka in nala ka helo interestigaas qofka hadduu interest uusan lahayn self interest uusan lahayn ma aha self interestiga midka self nishka ama macna self centerka ama selfishka dhahaan oo kale qof inuu isaga shakhsiyadiisa kaliya oo ka fakaraaya ma aha mararka qaarkood interestiga waxay noqon kartaa inuu interestigaada yahay inaad naftaadan wax tarto ummadan wax tarto sida dadkeena dhahaan tiisa daryeela tu kala ku dara adiga hadaa taada aad liidato taada ka soo bixi weedo waxa qaban karta malaha qof waxa qaban karta malaha qabiil waxa uu qaban karta malaha qaran waxa uu qaban karta malaha laakiin self interestigaada adiga oo educationkaada ku saabsan oo hantidaada ku saabsan oo caruurtaada ku saabsan oo saa wax adiga ku heleed ku saabsan oo ummadaada ku saabsan waa inaad leedahay waxa kale oo marka intaas walaalayaal marka intaas sheegno oo muhiimadeeda ah waxa weeyaan waxa la yiraahdo qofka inuu qalbigiisa dego farxadda mahadnaqa qanaacada inuu leeyahay inta hadaan soo sheegnay hadduu qofku helo waa inuu qof content uu noqdaa oo qanaaco qaba oo ma aragtay buuxa oo raxmaddaas ka buuxa oo macnihii rumaynta naftiisa rumaysan yahay oo rabbi rumaysan yahay ka buuxa oo macnihii rajadu ay ka buuxdo oo ma aragtay balance ah weeyaan taasaana lagu farxaana waana fadli rabbigay uu bixiyo oo dadka uu siiyo una rabbina dadka ku baraarujiyay oo baray oo yiri qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un ku farxa fadliga ilaahay iyo raxmadiisa ilaahay diinta aan ku siiyana ku faraxsan tahay ilaahay dadnimada uu ka dhaliyay oo hadda anaga Soomaalinimo ina ku faraxsan tahay wadankaada ina ku faraxsan tahay dadkaada horumarka ay gaara ina ku faraxsan tahay ma aragtay qof aad jeceshahay iyo qof kaleba muslimiinta guud ahaanba wixii horumar oo laga ku faraxsan tahay waxay cagsigeeda tahay kii xasadka ahaa ama kii masteerka qabay bay opposite-keeda tahay oo qof ma aragtay xumaanta ku farxa oo ma aragtay jabka dadka ku farxa aad noqon laakiin raxmad ay buuxisay oo naxariis ay buuxisay oo raja ay buuxisay oo iimaan iyo amaan ay buuxisay weeyaan marka walaalaha intaas hadaan ina badan baa jira laakiin waa ku soo koobaya wax isla way nagu filan tahay hadii inta qofka laga waayo oo wanaaga xumaantan ay ka buuxsanto waxa shaki ku jirin inuu qalbigiisa xirmaayo ku ilaahay uu ka sheekayo oo kale yaa tabaa Allah ala qulubihim qulubta uu daboolo kala noqonayna waxa dhacdaa la yiri anigu soo koobaya reer bani Israa'iil markuu rabbi soo badbaadiyay
oo ay badii ka soo gudbeen waxa la yiri iyagoon badii qoyaankeediiba uusan ka qalalin bay waxay arkeen qoom asnaab caabudaya oo la caabudaya markaas nabiga Muuse wuxuu ku dhahan ij'al lana ilaahan kama lahum aalih nabiga Muuse ilaah anaga noo sameeyay ilaahay u leeyihiin kuwaan oo kale asnaab u leeyihiin nabiga Muuse arintii uu ka xanaaqay uu ka canaantay uu ka joojiyay ka bacdi wuu tagay waxigii buu doontay markuu soo noqdo wuxuu u yimid iyagii oo dibi caabuday wuu la hadlay wuxuu ku yiri war maxaa dibigan u caabudaysaano alwaxdi buu turay oo macnii aad buu ugu dhawaaqay ugu qayliyay wuu la hadlay markii wanaag waa ka qaadan waayay wax allaal wax ka qaataan waayay waxay dhaheen waxa ka hadlay samicna wa casayna ilaahay marka buur buu soo qaaday buur dhan intuu soo dushooda saaray wuxuu yiri khuduu ma aateenaakum biquwwa waxa inay keen qasab ku qaat iyo awood iyo saal yiri waxay dhaheen samicna wa casayna ilaahay waan ku maqalnay diidnayna waxa aaleys dhahaysan ilaahay marka wuxuu yiri qulubtoodii baa la qofulay la xiray maxaa la yiri qulubtoodii marka waxa la cabsiyay waa ushribu fi qulubihim al-ajl wa ushribu fi qulubihim al-ajla waxa qulubtoodii la waraabiyay oo laga dhajiyay حب العجل دبيجي شعلك دبيجة بلا شعليسي دبيجي إسكت شعلادين مركو حال يرى هذا لقى سوق تقفك بين آدم كا حدي حمانته أي دبوشو هي روح وجاريا أوسن وحبا أوسن مقلين وحبا أوسن قاذن قصب هذا هذا كوج لي حتى هذا قال هذا ما حرن هذا فري هذه المفرق كرتوامي ما حرت حمانتي بحرتي أو ميل حينداب هذا جلسي ونكسب بحكرين مركو حال يرى هذا arintaas taas baa keenta waxa kale ay keenaysaa waxay noqonaysaa hadii maanta dhan la damcaayo in maartay weel xiran oo cabsan wax ku shubis way ka daadanayaan wax gaaraya ma laha marka ilaahay waxa ka bareen inuu qulubteeda uu furo oo wanaaga u furo xumaanta uu naga xiro aan noqono dad ku baraaruga cadkaan cad qiimo badan waay caafimaadka cadkaan horumarkeena ku jira cudurka cadkaan macna hoos u dhaceena iyo dhibaatadeena ku jirta iyadoo aan saa u hagaagno oo individual aan saa u wada fahano oo aan fahano qaabka uu qalbigayga u shaqeeyo oo macluumaadkan uu helayo oo qalbigayga uu yahay qalbi mar walba oo shucuurta iyo dareemayaasheen ku shaqeeya waxa uu ku shaqeynayna ay yihiin waxa uu maqlayo arkayo mar walba marka waxa aan maqlaynana aan ay yihiin wax aan anaga aan dooranay oo dad selective ah aan noqono waxa aan dooranayno arkayno waxa aan maqlayno waxa aan cunayno waxaan cabeeno waxa maartay aan dareemayno waa horumarkayga dhan waxa uu ku jiro taas ma maartay aan idin dardaarmaya naftayda iyo naftiina aan ku baraarujinaya aan u baahanahay inaan wax badan aan ka barano inta aan marka hawada dib ugu kulmi doono oo barnaamijkan iyo mid kale lamida aan maartay aan ku wada kulmi doono waxa idin kaga tagay salaanta islaamka wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh